ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa baaritaano ka waday xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho waxaana baaritaanadaasi lagu qabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sida mas'uuliyiinta ammaanka ay sheegeen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in baaritaanka ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Kaxda ay ku soo qabteen laba ruux oo la shaqeynayay warbaahinta Al-Shabaab. Gudoomiye Riiso ma uusan sheegin magacyada labada ruux uu sheegay inay ka tirsan Al-Shabaab laakiin wuxuu sheegay in laga qabtay masaajid ku yaala degmada Kaxda kadib markii laamaha ammaanka ay ka xog heleen shacabka degmada. Wuxuu sidoo kale sheegay inay booqasho ay ku tageen xarunta ciidamada booliska ee laga hago nambarka gaaban ee 991 oo loo diyaariyay in shacabka ay kala xiriiraan ciidamada booliska. Gudoomiye Riiso oo sii hadlayn wuxuu yiri labada dhagar qabe oo masaajid Kaxda jiifanayay oo idaacadda Andalus u shaqeynayay ayaan soo qabanay isla markaana in dhawaalaha ayaan ku raajognay ayuu yiri. Laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday baaritaano dheeriya oo ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana waxay ku baadgoobiyeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaana dhawaanahan caasimadda ku lug lahaa isla markaasna in dhawaalaha waxay ka geysanayeen weeraro hasaate iminka ayuu muuqataa in la soo ciribtirayo maadaama dowladda federaalka ee ku meel gaarka ay wado ciribtir ku aadan ururkan.